بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kusoo dhawaada walaalayaal barnaamijkii maxaa ka taqaanaa oo aan la kulmi jirnay culimada oon ka weydiin jirnay noloshooda macluumaad ah. barnaamijkan waxaa dayf noogu ah oo marti noogu ah sheekheena sheekh maxamuud maxamed shibli. sheekh soo dhawow. shukran, jazaak allah khayr. sheekhana waxaan rabnaa inaan ku bilaawno liqaa'an macluumaad badan oo noloshaada khusayso, marka magacaaga oo kaamila sheekh noo sheeg. بسم الله. أنا معي واحد إلى محمود الشيخ محمد عبد الصمد شبلي ونانيس أبهي ولها أو سوى يرلو بحي محمد شبلي كدبنا عليك إصرار راعي أصل كانوا حيكسوا جدا وحيلا متى أرياض الصومالي شاذلي يجيلاني إلى أبو بكر الشبلي نسوا في يدي وولد كمدوها وما يعوض الله بركيسته ما قعنا الله قول معنيه marka jeelaad iyo shaadari baad macruuf ah, laakiin shibliguna ragaa kamid ah. billahi tawfiq. jazakallahu khair. sheekhana waxaad noo sheekaysaa waalidiintaadii iyo bidaat waalidka raximahullah taasiirkii kugu lahaa iyo maartay waxbarashadii aad ka baran jirtay. alxamdulilah, aabba allahu naxariisto waxa waa raggii culimmada ahaa ee deegaankii aan ku dhashay, gaar ahaan maraajicda fiqiga shaaficiga ahaa. wuxuu aad u akhriyi jiray fiqiga shaaficiga oo safiinaha ilaa minhaajka laga gaaro. wuxuu aad u akhriyi jiray oo kaleeta fannigan sarfiga laamiyatul afcaalka gaar ahaan oo aad u xifdisanaa. wuxuu akhriyi jiray sidoo kale tafsiirka. intaba isaga yaa bilowgaygii hore wixii qur-aanka dugsiga aan ahayn isagaa intaba ii soo akhriyey. kutubta axaadiida ee mukhtasarkana isagaa aqriyi jiray. marka qaybta u horreysay noloshayda saameynta ugu weyn isagaa ku lahaa. isagaa markii dambena intii agtiisa ahayd markii aan ka akhristay ii soo diray meelo kale inaan dalabul cilmi iyo rixla u aado, tilmaamo iyo talooyinna isoo siiyey. nacam, maasha allah, ilaah u naxariisto. sheekhana waxaad nooga sheekaysaa caruurtaada iyo magacyadooda haddii aad noo sheegi kartid. alxamdulilah, aniga carruurtayda hadda waqtigan ad i wareysanaysaan waxaan dhihi karaa waa 8 iyo midaan rajeynaya inuu yahay waxaa la yidhaha taxta atabci. mustafa taxta atabci mataqaanaa? 8 halna waa gabadh, 7 waa rag. ninka ugu weyn waa ninka cabdilbaari baa la yidhaahdaa, hadda sanadkii 14 buu ku jiraa. daada xigta cabdilmuxsin baa la yidhaahdaa. daada saddexaad cabdilmatiin baa la yidhaahdaa. afartaa saddexdaa raggaa ugu waaweyn. waxaa ku xiga gabadh maryam la yidhaahdo, kadibna nin cabdilmaalik la yidhaahdo, waxaa ku xiga nin ibraahim la yidhaahdo, nin maahir la yidhaahdiyo nin la yidhahdo cabdilghafaar. marka 8 weeye ciyaalku. anoo xafido duriyado dhan. marka sheekh waad mahadsan tahay. waqtigoo gaaban daraadiis waxaan rabnaa inaan galno dalabuka lilcilm. sheekh, waxbarashadaadii inaad maaragtay si yaroo kooban min bidaayati diraasadaadii bilowgeedii ilaa maaragtay meeshii xaaliyan meesha la marayo inaad si yara lamxa muujiza iyadoo kooban aad noo kormartid adigoo aada u mahadsan. alxamdulilah, qaybta hore bilowga ahayd saan soo sheegay aabbahay baa asaas u ahaa. marka laga soo tago qur-aanka iyo de macalimiinta kataatiibta aan ka baran jirnay, fiqiga shaaficiga isagaa ii soo akhriyey kitaabka safiinaha, abuu shujaaca ilaa iyo minhaajka dhammaantiis. tafsiirkana faatixa ilaa suuratu maryam isaga ayaa noo aqriyey. isagaa aqriyi jiray sarfiga. kutubtan arbaciinka iyo mukhtasar ibn abi jamra iyo riyaad saalixiinkana isagaa aqriyi jiray. inahaas kadib aabba wuxuu ii diray abtigay oo hadda jooga sheekh yuusuf sayd cali dhuux inaan soo aadoon u soo xereeyo oo xalaqa u lahaa wax ka barto. abtigay intii muddaa la joogay mukhtasarka bukhaariga iyo kutubta naxwada oo
وحرتي أن لقب صدي إلى ابن عقيل ألفية ابن شرح ابن عقيل ميل لغا قارو جمع التكسير كاللغا سو قارو سان كسو أخرستي كتبت عقيدة ده مختصرات كودا مصطلح حديث كمختصرات كيس إلى باعث الحثيث كي لغا سو قاري سان كسو أخرستي الرحبية دي فرائض كريساقا إي أقريي وحي بري جري وحلا يرادو فن المطالعة الكتاب كي ديبو inaan fahmiyo inaanan fahmin muhiimaddu maaha muddo go-an intuu ii qabta inaan kusoo dhameeyo kadib waan ka soo tegay xilligaa dambe waxaan u soo wareegay xilligii madaaristii caddi thaanawiga ahayd imtixaanaad baan galay oo thaanawi baan ka bilaabay maktabad waasicana way lahayd laakiin marxaladaa ka hor allah u naxariistay sheekh mucaawiya xaaji maxamuud baa muqadimada muslimka iyo alfiyatu siyuuti iyo ciraaqiga iyo iyagana noo didiyey mustalaxa intaa markaan ka soo tagnay kadib jaamacaddan soo iltixaaqay jaamacadda madiina waxaa jirtay marxalo dhexda ah oon daraasadii thaanawi ahayd fasax 8 bilooda intisaaba ka qaatay waan kutubta sunanka ah sididisa aan kusoo akhrisanay kadibna jaamacadda markaan soo iltixaaqnay ee kuliyatul xadiis baan galo 4 sano daraasaadkeedii iyo xaramka daraasaad ka soconayo shacabaad iyo wadi jireen duruusu shabxaan mukhtaar shanqiiti buluul maraamka oo xilligaa jaamacadda ku bilaabay iyo fiqiyaad kala wadi jiray iyo laga culimo shanaaqitaah iyo xaramka iska joogi jiray oo aan kutub ku dul akhrin jirnay kadib markaan takharujnay dee saaxada dacwada baanu galay saaxada dacwada haddaan galnayna dee dalabkuma dhammaadee maktabadihii iyo kutubtu baanu daba soconay ilahaasaan kusoo koobi kari lahaa sheekhana barnaamijka markaan soo gudbinaynaa arday badan baan weydiinay wixii ay ku weydiin lahaayeen qaar badan baa waxay damceen inay kaa wareystaan inta mutuun ee xifdisan tahay iyo haddii aad ka jawaabi kartid su-aashaas inta mutuun aa xifdisan tahay noosh alxamdulilah walaada mutuunta xifdigeedu markii la yar waayeelo wax badan baa la halmaamaa markii hore haddaan xifdisanahay ma dhihi karo wade maanan tijaabin oo maanan muraajacayn laakiin fiqiga haddii la yidhaahdo markii hore waxaanu xifdin oon xifdisanaan jirnay manduumaadkan zubadka oo kaleeta iyo ka midka yihiin usuulkana waraqaadka iyo ilaa kowkabu saaticiyo ahaayeen mustalaxa alfiyat alciraaqi iyo bayqooniyada iyo manduumaadkan badanaa u badnaan jirnay naxwada ilaa ibni maaliga iyo amriitiyada iyo mulxatulicraabka iyaan xifdinay markii hore laakiin hadda dee baabu tadriis umaanu iska gallayo badanaa dee mawduucan u baahana waa xasuusanaa laakiin inaan weli xifdisanayo in kale wax naga dhegaystay iyo tijaabooyinkiiba maanaan gelino wax badan la iska halmaayo baa dhici karta marka dee ima tirsana oo intaas weeye tiro 1 2 3 ma geyn karo laakiin been alxiin walaakharna manduumaadkana soo maray qawaacid fiqiya faraa'id albahiyya iyo tan cabdiraxmaan ibn naasir الsacdi iyo manduumaadkii adabka mucalaqaadka ahaa iyo dee waagi hore waanu xifdinay hadda laakiin wax jooga iyo wax maqan waxaan u maraynaya wax badan oo kamid inaanan aad u wada xifdiysanayn dareeriya haddii la dhaho aanan garan karin laakiin mawducaan uga baahdo inta badan waa soo xasuusan karnaa jazaak allah khayr sheekhana su-aal kastoo muhiima jirtiyadana oo lacalla dadka daawanaya ay rabaan in insha allah kaga daydaan sheekha qur-aanka kariimka marka aad xifdinaysa sheekhana meeqa sana jirta kam kaana cumurka alxamdulilah intaan xasuusto waxaan deegaanka iyagu ahaa deegaanaan aada u deganayno kolba geedi iyo dagaalo iyo qax iyo laqaxay ahaan jirtay wakhtiyadan dugsiga qur-aanka dhigan jiray waxaan xasuustaa markii 20ka juz ee hore aan xifdiyey macalin cali iyo macalin cabdullaahi iyo macalin deeq nilira inagoo isaga dambeeyeen waxaan jiray sanadkii 10aad baan jiray markii 20ka hore birabinaas ilaa suuratu tawba bilowgeeda aan soo gaaray kadib dagaalaa dhacay muddo sanad iyo bar ilaa 2 sano ah dadku geedi iyo qax iyo kula meel carar baa lagu jiray waxaan xasuustaa sanadkii 12 jirkii ahaa baan dib u bilaabay muraajaca 20 iyo qur-aanka xifdigiisu sanad iyo waxba igu qaadatay marka taqriiban waxaan dhihi karaa 14 markii aan gaaray baan xifdiga dhamaystiray sheekhana waxaa wax ka wadin lahayn sheekhana mashaayikhdaadii iyo culimadii aad wax ka soo baratay
منذ القدم يعني ودن كسعودية iyo wadankiiba iyada kooban. alxamdulilah horta ragga culummada iyada saan soo sheegay kow alwaalid baa kow ka ahaa waqtiyada ugu badan qofkii aan la qaatayna ahaa qofka labaadna wuxuu ahaa abtigay sheekh Yuusuf Saali Dhuux oo ilaa hadda nolol aan maanta ku ogahay iska xanuunsan Allah caafiyo waxaa isaga noo saddexaynayay ragga culummada Sheekh Mucaawiye Xaaji Maxamuud baa ka mid ahaa waxaa jira rag badan oo anagu markaa mashaayikhaan aan u ictiraafsanayn laakiin xerta halku dhig waxaa dhihi jiray xerta kaa soo horreysay kutubta akhrisata baa kutubta yaryar xerta kale usoo akhriyi jirtay marka waxaa la dhihi jiray igu soo raaco muciidka la yidhaahda jaamacadaha waan ku soo raacdaa iyo igu soo raaca la dhihi jiray raggaadi way fara badnaayeenoo raggii naxwada qaar noo soo akhriyey nimaan ilma abtinahay baa ka mid ahaa hadda carre ingiriisaan kuga cabdirasiid axmed la yidhahdaa ka mid ahaa raggii wax noo soo akhriyey niman hadda etoobiya ku ahayoo socane cabdimursal la yidhahdaa ka mid ahaa raggii wax noo soo akhriyey xertana nala aha dhinac annagana marka wixii aan ku dhaana aan u akhriyeynay bay ahaayeen raggaasi waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo sheekh maxamed shaafici khaliif oo hadda kenya iyo ingiriiska u dhexeeyoona jooga rag badan saas oo kaleeto hadii aan aad u wada xasuusan way jiraan jaamacadda haddaan nimid daruusta xalaqadana 3 qof baa ugu badnayd shacbaad oo bukhaariga akhriyi jiray markii dambena nasaa'iga bilaabay sheekh maxamed mukhtaar shanqiiti oo daruusta fiqiga xambaliga iyo kitaabkan buluugul maraamka jaamacadda ku akhriyi jiray 2 maalmood marna tahaara 10 ka socday 10 biyuu ka bilowday ahaa nin sheekh Zaydaan la dhihi jiray oo dhintay Allah naxariisto ragii xafaad cilmi usul ka hayo sharaqatada hayo fadhiyi jiray kutub ku dul akhriyi jiray waxaan marmar tagi jirnay nin faqiih hayo xaramka wax ka akhriyi jiray markii dambana laga joojiyay kooga Cali ibn Saciid al-Ghaamidi la dhihi jiray waxa kamid ah raggan duruusta oo tagi jiray waacidka hayo aan filay wiilii joogo Sheekh Abubakar Jaabir al-Jazaa'iri waa kamid ahaa marootaarka qaybo waxaan ka dhageysanay Sheekh Maxamed Amaan Cali al-Jaami oo xaramka ku akhriyi jiray Baabu Umar meel gadaashiisa duruus sidaas oo kaleeta ba xaramka duruusta jaamacadda ka baxsay jaamacadda runtii rag ajilla wax noo akhriyi jiray raganaad waxa xasuusto saameynta badan ugu lahaa xalaqaadka nagu lahaa maadada caqiidada Shaaciri Cabdiraxmaan al-Xudayfi baa kamid ahaa Sheekh Dr. Anis Taahir nin la dhihi jiray baa kamid ahaa oo mustalaxa noo akhriyi jiray وحافق الحديث إنه أخي شيري إن شاء عبد الله أبو الصيف اللي يراد ما قيم بدن هاي مكتب كندوذا المسؤول كهان شيري وحنا أقرين شيري مصطلح قيوة كم إذا سنوات كقاركود شيخ إبراهيم نور الصيف من لديه شيري وصار هذا القيوة بين قسم الحديث كم إذا وقد سنوات كلا بدلا كبر ربع عصبة معلمين عصبة ضد كودي شيري لكن معلمين تقول مهم سنة أي كواسي كم إذا هاين نعم جزاك الله خير شيخ waxaa hadda aad inta aan liqaa kuleeyahay aad ku ceelisay shanaaqada marka waxa la isweydiinayaa ma calaaqada sheekh fi shanaaqada sheekh calaaqada uu leeyahay shanaaqada bidaat xifdiga iyo marka la fiiriyo waa maxay sheekh calaaqada uu leeyahay shanaaqada alxamdulillah shanaaqada madiinahan masjidka rag badan oo culumaa joogi jiray lagana yaab hadda inay weli baqaayaad ku sii yihiin meelna way deganaan jireen xaratu shanaaqita in la dhihi jiray aanu malaynayo iyagoo majlis usbuuci halab inay isugu yimaadaan bay lahaan jireen oo culimo badan oo iyaga ka qayb galaan annagu majaalista maana tagi jirin laakiin arday baan ahayn waqti koobanna waan joognay jaamacadda duruusta xaramka ee culimada kale akhriyaana hal kitaab baa sanado jiitabi jiray waxaan samayn jiray marka ardaygu intuu kutubta fanniga aad soo bilowda bilow ilaa dhammaad qaar fiqiga iyo usuulka ah iyo qaar culuumul luqada kaliya masaa'il tasawufa iyo masaa'il caqiidada sifaadka ashcariye ahna waa iska ilaalin jiray iyagana marka waxaan soo qabsan jiray 2-3 ama kaliga qosheekhana wixii bisha aakhirkeeda ama kitaabka aakhirkiisa wixii aad u hadiyeyn karteen aad u hadiyeyso adigana aad kitaabka ku dul akhrido inaad kitaabka gurigaaga ku soo diyaarinaya maktabada ka soo diyaarisa waad ku dul akhri isagana wixii mulaaxada u muuqato ku sheegi adigana wixii istifsaar aad u baahantahay inaad su'aal ka weydiiso baad weydiin marka waxa dhici karta sanad gudihii 7-8-9 kitaab waaweyn oo maraajica inaad ku dul akhrido inuu hal badnaa ku dul akhriyi jiray kutubta usuulka ugu badnaa
sheekh zaydaan baan ugu badnaa raximahu llahu tacaala waxaan filaya rawdatu naadirka 2 jeer baan ku dul akhriyey nadmul waraqaadka waan ku dul akhriyey waa cajiib ah sheekha daakirada xasuusiisa xataa akhtaada matbaciga ama nadmiga matbaciga hore ee ku dhacaya wuu tasiixin jiray wuxuu dhihi jiray cibaaradaas saas maaha sidaa way sawaabkeedu kadib nihaayat usuulka sharxu minhaaj usuul isnawi baan ku dul akhriyey waxaan ku dul akhriyey qaybo kamida ixkaam alaxkaamka aamidi waxaan ku dul akhriyey mabaaxid kamida kan fakhruraaziya maxsuulka kutubta usuul fiqi waad ugu fiicnaa fiqigiisuna maaliki buu ahaa marka fiqiga maalikiga aad maana ihtimaamkaygu ahayne maadaama maalikiya shaaficiyada masaajidka usuulka ay isaga dhow yihiin usuul fiqi ardayda waxay samayn jireen qaar luqada xifdisanaa baa jiro nin xaramka socon jiro oo fadhigu dhibi jiray ardayda way la socon jireen mucalaqaad iyo adab iyo naxwey u wada xifdisanaa markaad soo xifdido ama aad soo diyaarisood kitaabkii wadato bad xaramka la dhexlugeen markuu daalo ilaa geeska waxoogaa markaad fadhidaan bil joogtaan aagga waad bedelanaysaan oo looma ogola aada looguma ogola tajamuca aag kalaa tegaysaan waxaa nagu qasbayay marka raggan rag culamo ay ahaayeen wakti badanna way hayeen annaguna waktigaa nagu yaraayoo dhowrka saneed joogto duruusta kale culamadeeda hal kitaab baama dhammaanaynin taasa marka hore wayna dhibtay luqadooda aniga usbuucyadii hore sheekha luqadu ku hadlaya tacriiqiisa inaan lahjahaan fahma way dhibi jirtay markii dambana kawaaxidi minhum baa noqdayo waa la qabsaday luqadii maralaada wuxuu sheegay oo dhan marka waxba ma dhaafi jirin marka calaaqada iyadu xaajadaas